هاي اسبانش وريس نكتة ما قرن والله جوجل برا هاي sheeko gaaban waa hayaa ma garan kolkaa waxaan ka hadlayo waa jacaylka dadka aan waxba haysan lagu saliday waxa weeyaan ku yar bay hooyadii iyo aabihii ka dhinteen oo agoon kolkaa gabadh yar buu jeclaaday gabadhaa yar waxay aabiyeed dadkoogii buu weydiiyey wuxuu ka yidhi idhisa aabiyeed buu ka yidhi adna aabbayga noqo anuu aabba ma haysta adiguna aabbayga noqo tayar hooyadeedna hooyahaga noqoto waa loo dhisay kolkaa ninkan laba rag bay ka waaweyn labada arag ka waaweyn adduunkada waraalaha gursanaya waxaa laga oranaya liidarka qol xad beer ku cuna waxba badama haysatid labadii waalid wax ku dhislayna ma joogtay maxaa de teeraanka dhagax u guri ayaa isagii laga oran kolkaa wuxuu yidhi awba sheegi maragii damamar uu la hadlay gabadha aabeed baa yidhi dabar dhisay uu dhisay aqal lagu kiriyey wuxuu ka yidhi waad nadar reerkaaga u ka laha oo de bakeelay baktin haddaa soo yeshid u keen dee subaxii kasta uu keli jiray ka yar ku fara 800 900 wuxuu soo loo keli jiray haddaba naagtu markay ku soo gorayso moolay leedahay laakiin marka dambe ay wax ku dhasho gees la baxda ideen gabadhii ilmaha u dhashay geeskii hore la baxday ilmihii laba gees baadeed ma kareeba naagtuna biciidba hadeed ma karayo waxa dhacday gabadhii inay islaayaan labadii iyo barkii habeenimo way soo doday aqalkii aabeed bay timiday aabba bay ka tiri ninkan iga fur kuma galaya aabbi iga fur kolkaa buu ka yidhi haddaba anaa kaa furiyo intuu waa ii berayo xusulkayga intuu xabaal ka sarreeyo anaa kaa furiyo seexo uu seexday way seexatay subaxii waagu beriye telefoon buu sameeyey kiiraa buu yeedhay wuxuu ka yidhi aabba maxaa jira aabba gabadha waa fahmi lahayd labada ciyaar ugu dhashay haddaba ay fadhiisto iska barjay jaadkii buu qaaday hadday sagaalka habeenimata uu ka yidhi soo jaadka uu tufay meel yaroo waxaa jirta aqalku 3 shambar baa wuxuu geliyey meel istoogoo lagu ururiyo teeliyada kharaabay iyo waxa ayuu geliyey uu qabiyey laakiin odayga daaradda wuxuu ku xidhay muskakeer iyo firaash iyo sariir kolkaa tii gabadhii baa timid aabba waxa ku maray bay ka tirinaki ma wada hadasheen haabu keenaa dadkoogii soo kaxaysanayaayo subaxaad ka furaya kolkaa sariirtaaba seexanaya oo halka aabba maxalka lagu seexin bay ka tiniga ninkan nafteeda nasmay aabba dan siidayo oo iga baxsan buu keenay subax halka ma ku gaadayana isaanu qabto meeshu geeyo inuu wiilkiisa labaabina ma soo laamay waxay dhacday bay ka tiraabo hooyo ka tada maqsinka hurdada inaan baayida seexanay subax baanaha la galay hablaha iska dhaxso waxa ka dhig hayo maqsinka kiiraw soo saaray maqsinka hurdadu seexiyay odayga baa sariirta iska seexday bal u fiirsan sheekada waa sheekadii ugu cajaab badnay sariirtii buu odaygu seexday labadii markaa ay gabadhii kaliif soo kacday waxay tiri kaliifka galisay soo kacday soo noqotay oo bay soo sariirtii gal fariistay waxay tiri xasan shiirano ku jecelaha dadkayga waa dad xun subaxina kala furayaan qaadigeena geynayaan amnaagtana jecelaha ku adkaysayaan odaygii ma tugo iska qaadi kara aabba kaan furo iska soo aabbo waa jeclayda ninkaaga maxaad noo waalisay guraaba madaxa naga ciyaar dad waa weyn maanay kolka laba rag oo iyada la dhalato dagaalay soo lahay isagoo xabaysan boolaashi ku filibinaya ayuu ka yidhi aabbo iska daaya booqa uu seexiyay gabadhii wuxuu ka yidhi ninkaaguna waa ka iska hurdan baqsi hurdada or la seexo way seexdo subaxii ko gacanta haysto faraxsan ayaa soo baxay kolka walaalayd buu ka yidhi eeg walaashiin ninka iska jeceshay maxaad ugu dagaalamayeen ma reer buuxada baabinaysan kolka waxa la waalidadu waxa hubsadaan qofkooga intayna geeyay goobtii la isku kala furiyay ambari